qof kastoo martabadiyo sharaf lagu manaystaba idii aqoontiyo mayraxa ku qaaday hooyo adiga mudnaashale hooyo adiga mudnaashale mufti iyo aqoon-yahan miliile cabwaaniyo barameelifiyaba macallinkii waxbaraye hooyo adiga mudnaashale hooyo adiga mudnaashale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي على سود هذا ميل والبقى جوكتين أصحابته كوحرن جنال كيجا ميل والبقى دونك جوكتو حرلايا هاي مالي ونكسن حلقة يكون طاي أو نكسن أو كلها ما دام إيتها حلقة أنا أنصدوها مقالك ظهور نما إيتها سديد ساعة ملاز إيتها وحروا صاحب يال سيدا ما أنت سو عرقتين هي سيدا تيتل كاكو سو عرقتين بو وحلقية با إن أي بنتهين أسليدهين لي لايف maxaa ka khaldan maanta maxaa siik ma fahmino waa yaaba kartiin laakiin commentiga waa la soo bixi kartiin waxaan jeclaystay maanta inaan ka hadlo muuqaal maadaama ay tahay 8 Maarso ay tahay maalinta haweenka adduunka afanteena fila waa maalinta haweenka adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inta dadka u hambalyeena waxa kamid ah haweenka Soomaaliyeed maadaama ay gabdhaha Soomaalida gabdhaha ugu dulqaadka badan ugu sabarka badan markii laga soo hadlo dhanka reerka markii laga soo hadlo dhanka kaleeto bulshada oo kaleeto arimaha bulshada oo kaleeto waxaan leeyahay gabdhaha meel walba ay joogaan maanta waan hambalyeena maadaama ay tahay 8 Maarso maalinta haweenka Soomaali waxaan leeyahay meel walba aad joogtiin I love you so much aad iyo aad aan jecelahay gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay tihiin gabdhaha ugu sabarka badan markii laga hadlo habeen guriyaha oo kaleeto hadda markii guriga sida neeyna oo kala isqabaan inta badan guriga waxa u dhabar adeega waxa way habeenka waa hawsha guriga qabtaan xitaa mar qarkood odiga waxa laga yaabaa inuu baagamuundo yahay ma isla habeenkii shaqeynayso waxay qabanaysaa shaqo oo markaas iyada u gaar ah oo ay ka shaqeynaysid oo sida biibato oo kaleeto waxay furinaysaa waxa kaleeto waxa iska arkaysaa maamo oo ilmo agoon korinayso waxay ka mid tahay habeenka marka waxaan leeyahay habeenkeena alxamdulillah wallahi dib ugu badan hortaygo ku dhacaa markii aragtidna markii lagu dhahayo nina heer gaari ama nina meel gaari macnaha ma ahan moogtaa nina meel gaari ninka hadduu meel gaaro waxa ka dambeeyo inta badan habeen hadduu oo qabo iyo hadduu usan qabinbo sababtoo habeenka waxa waaye qofka kaliya ku soo dhisaayo oo maanta marka aad tahay nin iska ciyaar xaafadeed oo waxba haysanin qofka kaliya ku soo dhisayso waay habeenkeen dib badan ay soo mareen dhibaatooyin badan ay soo mareen kufsiyo badan ay mareen xadgudub badan ay mareen jirdil badan ay mareen meelo badan wax loogu gaarsiiyay saasay taabay sabraan maanta disan habeen jirleen anaga ma jirleen sababtoo ah haween ana hadda naaga qaba marwaan leeyahay ninka marwaleen ilaahay marwaa u sahlo waa dhala waa ii dhaxay waa ila dhalatay waa ii dhashay intaas waxa waaye habeenka Soomaaliyeed waa marka waxaan leeyahay habeenka Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin aad iyo aad boqolkiiba boqol waxaan leeyahay hambalyo maanta marka aan maqlay maalinta habeenka waa meel walba soo dhiga arkay waxaan jeclaystay gabdhaha Soomaaliyeed in ay hambalyeeyaan sababtoo ah way iga mudan yihiin waa gabdho walaalaheen gabdhaha inta badan waa fiican wallahi gabdhaha aan ku dhahay waxa way kaali arag waa ragga iyo gabdhaha fiican naxariis markii la doono habeenka ugu maaw habeen sideeda waxa waa iska naxariis badan tahay waa iska daacad tahay waa iska furfuran tahay waa gabdho iska furfuran qaasatan ma ugu jiraan gabdhaha Soomaalida gabar kasto waxa waaye miskiin waa waxaan leeyahay rag gabdhaha ku dheedheelay iyo rag gabdhaha qiyaana waxaan leeyahay gabar ha u quurin inaa qiyaantad walaashaada kaliya ma moogtaa gabar tan kula dhalata bas leemaan gabar kasta oo Soomaaliyeed oo gabar kasta oo muslimad waa walaashaada ha ka soo qaadan kaliya aan ilama dhalanay iyo waxa waa imaan gabar kasta oo kula dhalatay mas gabar kula dhalaninbo waa walaashaada gabar waa gabar marka waxaan leeyahay gabdheena Soomaaliyeed isgacan qabsada waa nijeeda gabdho badan isgacan qabsadeen oo is dhiirgeliyeen oo howlo badan qabteen arimaha bulshada oo kaleeto maamooyin badan jiraan oo iyaga howlaas qabteen oo howliga gudu jiraan oo dad badan oo qabteen
marka sauudiin background-kan waxa waaye maanta meel banaan iska fadhiya xaafadda horteedla marka waxaas dhahay kaamirada soo qabso habeenka Soomaaliyeed u hambaliyay waxaan leeyahay habeenkeena meel walba ay joogtiin hambalyo maadaama ay tahay 8 Maarso maalinta habeenka marka waxaan leeyahay habeenka inta badan waxay u soo dhabar adeegeen qoysaskooda familkooda howlahooda oo shaqooyinka waxa arkaysaa maamo korinayso intaas oo caruur oo korinayso oo u shaqeynayso xitaa maamooyinkeena waxay qaarkood leeyihiin maqaayadey leeyihiin ay ka caado u furteen si u dhabar adeegaan ilmahooda iyo wixii soo bixi lahayd inay garab istaagaan garab socdaan intaas oo dhabar adeegaan waxaan ugu dhabar adeegaan waxa waaye waa habeenkii wallahi horta habeenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan maqal inay tahay maalinta habeenka adduunka gaar ahaan habeenka Soomaaliyeed oo meel walba laga soo hambaliyeen arkay beej walba la soo gelinayo marka waxaan leeyahay habeenka doorkooda hala siiyo maadaama ay door ku leeyihiin siyaasadda ahaato howlaha kale ahaato inta meel walba door ay ku leeyihiin habeenkan oo u qalmaan in hoggaan ay noqdaan sababta qofka doob markuu sabar badan yahay oo naxariis badan yahay waa qof hogaamiye noqon karo annagoo dhan waxa waaye gabdhaha nala dhashteen waa dhaleynaa wayna dhaleen inta waana qabnaa inta waxa waaye habeen waaye marka habeenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba aad joogtiin isgacan qabsada habeenoo gacanta halis qabsado alaga soo horjeesto qofka oo xasidka iyo qofka hadda wax arkaynay 2020 hadda dhamaanay waxa aragnay gabdho badan oo yar yar oo la kufsaday waxa aragnay gabdho badan oo in la kufsaday jirdil wax la iskugu daray waxyaalahaas oo dhan waxa waa waxyaalo aan u fiicneen habeenkeena sababta habeenku waa sawir badan gabdho yar yar 4 jir waa hadda sanadka hadda ka bixinay hadda bis saddexaad aan ku jirnaa waa sanadka ka bixinay waxa dhacday in gabdho yar yar la kufsado gabdhaha habeenay kamid yihiin hadhow markay beenaan waa habeenkii yaa ku soo haray gabdho kale waaweyn in la kufsado la qalay meel la soo dhigay xitaa waxa jirta boosaas waxa ka dhacday gabar kale oo Soomaali ah in la kufsaday oo jirdil isku daray baawurna madax laga maray intaas waxay ku dhacday ee ku imaato xabaay habeenkeena dada si xun u gala artan waxaan ku leeyahay brada hala dhaqmin habeenka Soomaaliyeed waa gabdho izeen leh oo sharaf leh oo madaxa noo saaran marka mala rabo idinka in ala dhaqantiin afaanteena fila waxaan leeyahay ragga iyagana kulay habeen waa dareemi kartaa gabadha waa sharaftaada waa gabadha lagu sheegaa waa adi sharaftaada sababta walaashaada maanta hadii aad ku dhooran tahay ilaalisid xakamaysid la socotid waa sharaftaada hadii dib ku dhacaan adoo dib kugu dhacay wuxuu kugu dhacay waxay tahay tusaalo kale waxa imaanayo sharaf dhac hor maxaa loo Soomaali gabadha la yar gacan rageed kaaga jirto mise god kaaga jirto macnaha waxa laga wadaa gabadha ha asturnaato mise aka dhimato waay sababta maanta hadii walaasha aad celinin oo adiga xumaanta ugu warkacdeed waxa iska dhibaato waay marka waxa leeyahay habeenka dhibaatooyin badan ay soo mareen oo dhibaatooyinkaas oo dhibaatooyin badan oo rag badan u geysteen 2020 dhamaana waxyaalo badan la diiwaan galiyay gabdho yar yaraas in loo xad gudbo waana wax xanuun marka waxaan leeyahay habeenka Soomaaliyeed isku gargaara isku socda isgarab qabta idinka waay halis garab qabto gabdhaha kala dhamo oo dhibaataysan hala garab qabto maadaama ay tahay maalinta habeenka anu waani hambaliyana waxaan leeyahay afaanteena fila marka waa maalinta habeenka halis garab qabto halis la socdo gabadha kale walaashaada dhibaataysan hala garab qabto no qabiilna ha jirin caadi haweenimo Soomaalinimo hal isku raadsado aan leeyahay fahmino marka waxaan leeyahay idinka kulay xaqiina waaye wixii tale aan waa soo gudbi waana hambaliyana dira maalinta habeenkana tahay hambaliyo ay mudantii maadaama aad tihiin gabdho Soomaaliyeed iyo gabdhaha kale muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo boqol jeer kudii ko jira baran leeyahay fahmino maadaama ay tahay maalinta habeenka waa xaqiina idinka waaye waxaan leeyahay ilaahay hanila garab galo ilaahay garabkiina ha galo waani waxan baliyana sida quruxda badan isku soo dhabaysiin waxaan leeyahay sideeda kala bisha kala doo ilaahay na gaarsiiyo sanadka kaleeto haduu ilaahay na gaarsiiyo gabar walba Soomaaliyeed meel walba joogto walaashaado dhibaataysan oo dariyo oo dhib ku jirto garab istaag waxa kaaga baahan tahay garab istaag hadii aad wax karoon tahay marka waxaan leeyahay waxa isku xirma karaan waxaan leeyahay wiilasha
ugu dambeyntii waxaan igu baaqi lahay gabdhaha Soomaaliyeed inaad dhowrtiin aad xishmaysiin aad ka ilaalisin meelaha wadaxda ku dhacayaan idinka horkicina marka waxaan leeyahay habeenka Soomaaliyeed ugu dambeyntii meel walba aad joogtiin hambaliyo kun iyo kow jeer waxaan leeyahay hambaliyo asxaabay idinkana muuqaalka si share garay hadii ay tahay markuu ugu horeeyo channelka subscribe saar maxaa ku soo haray muuqaalka like garay si ay u soo gaaraan gabdho badan oo habeen ah waxaan leeyahay may walaalahayga dhamaantiin walaalahayga aad tihiin waani hambaliyana farxadan waan ila qaybsanaa maadaama ay tahay 8 Maarso waxaan leeyahay asxaabay sidaas iyo nabad geliyo